Assalaamu calaykum. Ma ogtahay 1945tii ciidamada Faransiiska oo xasuuqaya shacabka Jazaa'ir? Dowladda Faransiiska weli saameyn siyaasadeed ayay ku leedahay dhulkii ay gumaysatay, waxaana u adeegaya nidaamyo ayagu ay dhisteen. Ma ogtahay dhacdadan waa Shiishaan 16-keedii bishii 10aad 1999 waqti barqa ah waxay xasuuqayaan Ruushka Muslimiintii Shiishaan waxayna halkaa ku dileen aabba akhrinaya Qur'aan iyo xaaskiisii iyo gabadhoodii oo daawanaysa. Ma ogtahay maxaabiis Muslimiin ah oo u dhashay Asbakistaan waxaa lagu xidhay silsilado ayagoo lagu iibinayo suuqa addoommada kadib markii uu fashilmay kacdoonkii Iishaan ee ka dhanka ah ciidamadii Ruushka 1890kii. Ma ogtahay in Faransiisku uu dalka Jazaa'ir ku dhuftay in ka badan 17 qunbulado oo nukliyeer ah intii uu dalkaas gumaysanayay? Ma ogtahay in Faransiisku nukliyeerkii uu ku tijaabinayay Jazaa'ir ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof marka laga soo tago malaayiinta uu sida tooska ah u saameeyay ee cudurrada khatarta ahna ku reebay? Ma ogtahay Muslimiintu waxay Andalus ku qabsadeen 12,000 oo dagaalyahan markii Saliibiyiintu dib u qabsadeen Andalus? kaliya magaalada qarniga ah waxaa ku noolaa 1 milyan oo Muslimiin ah. Ma ogtahay Harold Edward Holt oo soo noqday ra'iisul wasaarihii dalka Australia sanadihii 1966 ilaa 1967 ayaa la waayay mar qura isagoo sanad xilka haya xilli uu ku dagaalanayay badda, ilaa maantana lama helin meydkiisa. Ma ogtahay wadamada ugu dadka badan inay yihiin China, India, Mareykanka iyo Brazil? Ma ogtahay 3 qof oo ku jira social media ee caanka ah ee aan weligood hadlin ayagoo muuqaal duubaya inay yihiin Mr Bean, Charlie Chaplin iyo Qabilan? Haddaba intaas ayuu ku egyahay mawduuceena. Tan iyo muuqaalkiisa xigeenka ku kulmi doon waxaan igaga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.